aad ugala xiriiri jirteen ugana daawan jirteen Somali Media TV dadka doonaya inay nala soo xiriiraan inta barnaamijkani socdo waxa aad naga soo xiriiri kartaan telefoonka goordhow ku soo qormi doona screenka TV-ga aad daawanaysid waxa barnaamijkeenu maanta si gaar ah uu ugu saabsan yahay booqashadii madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu dhawaanta ku yimid gobolkan Minnesota ama guud ahaanba wadanka Mareykanka warar iskhilaafsan iyo fikrado iskhilaafsan ayaa dadka Soomaaliyeed ama jaaliyada Soomaaliyeed ku nool gobolkan Minnesota ay markaasi ka sheeganayeen booqashada madaxweynaha wararkaas iskhilaafsan ayaa ahaa kuwa mu'ayidiina iyo qolo kale oo iyaguna mucaarad ku ahaa madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya labada dhinac waxaan eegi doonaa bal fikirka ay ka qabaan waxa ay ku dhaliisan yihiin iyo waxa ay ku amaanayaan dowladda amaba oo madaxda ka yahay mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa stuudiyaha ila fadhiya oo martino ah aan ka bilaabo gacantayda bidix Cabdiqani Sheekh Xasan Sheekh Ahmed aan raahdo raalahow iyo Ismaan Ahmed Sheekh oo isaguna garabkayga midig fadhiya aqoon-yahanada iyo ganacsatada iyo waliba dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada Soomaalida ay labaduba kamid yihiin waxa isaguna gacantayda midig barbarkayga midig baan raahdo fadhiya Cabdi oo aad si weyn u taqaanaan oo isagu ah ruucada dhinaca saxaafadda Soomaalida markaasi wax laga weydiiyo isla markaasina TV-yada iyo idaacadaha Soomaalida u gudbiya warar ku saabsan dhinaca Soomaalida oo markaasi laga tashado Cabdi waa khabiir isaguna dhinaca saxaafadda mar walba ku jiray muddo dheer waxa uu eegi doonaa oo qaadar dhigi doonaa bal sida uu arko fikirka dhinaca booqashada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aan ku bilaabo marka ugu horeysa su'aasheeda koowaad Cabdiqani oo barbarkayga bidix fadhiya Cabdiqani bal waxaad si kooban aad iigu sheegtaa adoo qodobaynaya waxa aad ku diidan tahay ama aad ka soo jeedeen dhawaan mudaharaadkii aad ku hor sameyseen madashii uu shirka ku qabanayay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Muumin maxaa ugu weyn waa mahadsantahay Sheekh Muumin waa Sheekh Maxamuud madaxweynaha aad baad cali xaraare u mahadsantahay adiga iyo Somali Media iyo dhammaan saxaafadda hor socda inta dabadeed waxaan leeyahay dadweynaha Soomaaliyeed oo dhageysanaya dhammaan waa salaamaya waxa arinta la weydiiyay haddaan u soo noqdo waxa weeyaan mar walbaba waxa jirta dhibaato dadka Soomaaliyeed dhex taala haday tahay dawladda iyo haday tahay shacabka iyo xilli dheer oo hadii ay ku reeyahay Soomaalidu burbur iyo dhibaato ku jirtay kalsooni darro dhacday waxyaabo fara badan oo hadda taagan waxaan ku diidanahay qodobka koowaad waxyaabihii lagu heshiiyay federalismka ah oo muddo dheer dabadeed road mapkii Soomaaliya ka soo baxay waxyaabihii ka soo baxay oo qodobka labaad waxa weeye caasimadda Soomaaliya oo maanta dawladda Soomaaliya fadhi u ah muddo dheerna ahayd caasimad Soomaaliya haddana u muuqata inay caasimadii Soomaaliya ahayn waxyaabo badan oo marka dambe aan sharaxi doono ayaa ku jira qodobka saddexaadna waxa weeye ciidamada qaranka Soomaaliyeed oo loo doonayo mar walbaba in laga qaado cunaqabatayntii ummadda Soomaaliyeed si loo dhiso ciidamada Soomaaliyeed inayna ahayn ciidamo qaran Soomaaliyeed iyo waxyaabo kale oo badan aan weydiiyo bal Ismaan sagana Ismaan qodobada miyaad ku taageersantahay ama ku raacsan tahay Cabdiqani mise qodobo kale ayaa bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh marka hore waxaan salaamayaa daawadayaasha qiimaha leh meel kasta dunida naga dhageysan doona oo naga daawanaya waxaan gaar ahaan ugu mahadcelinayaa barnaamijka ragga soo qaban qaabiyay oo uu kamid yahay xiriiriyaha barnaamijka galabta Cali Xaraare iyo Cabdulmaalik Askari Xay oo gudaha ku jira intaanan u guda gelin qodob waxyaabaha aan ku dhaliilsanahay madaxweynaha waxaan jeclaan lahaa marka hore bal daawadayaashu inay nala daawadaan khudbadii madaxweynaha soo dhaweynteeda qaybta hore si aan u dul istaago khudbadda laftirkeeda dhaliilaha ay lahayd halkaas ayay waxay ka soo bixi doonaan meelaha aan madaxweynaha ka dhaliilsanahay marka waxaan jeclaan lahaa bilowga khudbadda in aan wadno وين قاعد دونا إنه نصاح الله خطوة مركبين وشاقي لكن أنت إنه خطوها قاعد ويا مركب هذا سي وتصالة هبين كده المدحوين هو إسكايا بري وحو إسبري جاليد قبل كمينسورا runtii isbarashadaas anigu hadaan ayada lafti kale tacaliil ku sameeyo ama aan faahfaahin ku sameeyo
أول مدحوينها وحن كيسني رنتي فكرته كوبان oo maaragtay xagga siyaasadda uu ku taraaraxay laakiin waxaad moodaa habeenkii dhaweyd taraarixiisa ama khaladaadkiisu aad inay u fara badnaayeen tusaale haddaan usoo qaato madaxweynuhu wuxuu ka hadlay isaga iyo prime ministerka iyo guddoomiyaha baarlamaanku inay saaxiib yihiin ay ku heshiiyeen inaysan isqaban taas macnaheedu marka ma loo qaadan karaa inay u heshiiyeen shacbiga Soomaaliyeed inaysan nin walba shaqadii uu lahaa uusan qabsanin inay u heshiiyeen madaxweynuhu inuu uu dictatornimo uu ku dictator falo oo shaqooyin uusan isagu xaq u lahayn uu qabto oo baarlamaankii ama prime ministerkii shaqooyinkoodii la yiraahdo madaxweynaha qabanay taas waa xaway qodobka koowaad qodobka labaad waxa weeye madaxweynuhu waxaad moodaa inuusan dastuurkii isaga lagu soo doortayba inuusan tixgelin iyo qiimeyn siinin isagu jeebkiisa uu rabo mid gaar inuu kala soo baxo oo sidoo rabo uu sameeyo faahfaahinteedana kulli waa u galeynaa qodobada baan rabaa inaan u galo dastuurka waxyaabaha aan tabanayno aan leenahay dastuurku ku tuntay markaan gaarnaan ayadana asmaan horta qodobkan madaxweynuhu uu ka sanqariyay uu leeyahay aniga iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra'iisul wasaaruhu waanu isla shaqeynaa ama waanu isla shaqeyn kareynaa dhinaca wanaagga haddii loo bedelo waxay noqon kartaa dad wada shaqeyn karaya oo isu xil saaray inay arrimaha Soomaaliya wax ka qabtaan haddii laakiin dhinaca kale ee adigu aad ka eegtay dee waxay noqonaysaa tarjumaad adigu aad tarjumatay maxaa dhinaca wanaagsan aad ugu qaadan weyday oo dhinaca kale ugu qaadan waa runta su'aal fiican weyn runta qof walba inuu isweydiin karo waxyaabaha aan leenahay sida uu afka uga sheegayo ma waxa weeye madaxweynuhu wuxuu hadda ku jiraa oo faraha kula jiraa shaqooyin oo uusan isagu lahayn inuu qabto aan shaqadiisa ahayn dastuurkeena sida aad la socotaan ama intii akhrisay wuxuu qorayaa shaqooyinka waa la kala leeyahay qayb guddoomiyaha baarlamaanka iskale iyo baarlamaanka qayb dawladda iyo waxa iskale ra'iisul wasaaraha qaybna waxa iskale madaxweynuhu waxa loogu talagalay inuu ilaaliyo shuruucda marka aan leenahay saaxiibtinimadaas ayaa shaki ku jirta waxay tahay madaxweynaha waxaad moodaa فرجلينتا وكوها شقوينكي يسقي إنه قضي برايم مينستر يحول بقى إنه موجنيس إنه كوضو برايم مينستر كان وحنا نشيس كنا هاي إنه شقديسي أنا وأنقبته. وايه أنا هذا كوري تشيو عبدارو سيدا ورطة باقي شذا مدحوين حسن شيخ محمود وقيمة قبل كان من سورة أركت هذا. والله ورطة على أدود ما تنتهي هذه عبد القني عثمان با. أنا وحنا أركا مدحوينها سفر كيو من يابلس قيمة مظاهرات إنها هاي وضح حلالة. oo madaxweynuhu maray isagoo 3 bilood 4 bilood bedelka jooga oo madaxweynuhu loo magacaabay inuu markii ugu horeysay uu Mareykan yimaado uu yiraahdo waxaan soo arkayaa community-geygii dadkayga shacabkayga garaacay dadkii Soomaaliyeed ee 20 sano aan saragay qaxootigaha barwaaqalina indhaha ku soo arko ehel iyo qaraabo iyo Soomaali weynba marka waxaan arkaa inay ahayd wado fiican iftiin fiican oo ummadda soo baxay waaye wad ma santa Cabdaar Cabdiqaniyow dalkan Mareykanka madaxweynayaal badan oo Soomaaliya Soomaaliya booqasheen ku yimid labada ugu sokeysay baan ka soo qaadana waa maxay farqa u dhaxeeya madaxweyne Sheekh Shariif oo halkan hore booqasho inuu yimi iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Ali waa ma santahay anigu waxaan u arkayaa in wax badan oo farqiga u dhaxayn si ahaana dawladuhu siday u shaqeeyaan caalamku iyo sida dawladaha mesela Soomaaliya oo kale ay u shaqeyso inay kala duwan yihiin dad ninku madaxda ah ama ninka mas'uulka ah ama madaxweynaha ah umadiisa iyo dalkiisa sumcadda uu ku leeyahay ba wax macna leh inuu wadan tago oo wadankaasi soo dhaweeyo ama wadankaasi dadka maxaan ku raadayay joogay ay sarkaan wax badan ma aha mar walbana ninku wuxuu ku qiimeysan madaxweynuhu ku qiimeysan madaxdu ku qiimeysan tahay wadankiisa iyo dadkiisii ayaa waxay joogeen banaanka dagaalamayay caalamku arkayay idaacadaha caalamka lagu soo qoray marka dadkiisii wax ka sheeganaya inuu Mareykanka intuu yimaado la yiraahdo Mareykanku uu yimid waa la aqoonsaday wax weyn uma arkayo taas weeyaan aqoonsiga waa inuu noqon doona Sheekh Shariif kuma idin sameeyeen mudaharaad Xasan Sheekh Maxamuud maxaa mudaharaad ku sameeyeen inta doonaya waa intaas waa arrin fiican marka koowaad horta labada nin waxa weeyaan nin waliba si unba loo dareemayay dadku in yarna way la yaqaanay ninkani waxa weeyaan isaga ayaa bulshadii isku diraya wuxuu ka hadlayaa wax fara badan oo dadkii Soomaaliyeed 20 sano dhibaato dhex taalay xanaf baa jirta xanaftii buu sii damqinaya wax buu sheegaya qaar buu dalkii support gareynaya qaar buu ka hor imaanaya la diriraya حتى قبيلو شيغيا او سي قبيله اسغو مدحوينيه ku dhawaaqaya Sheekh Shariif qabiilka ma sheegayniba hatta haduu wax dhimayo wuxuu dhimayo hoos buu dhimayay marka taas calashan kala leh aanu soo noqon khudbadii uu madaxweynuhu ka jeediyay dadkii uu la kulmay Soomaalida ay ku dhaqanaa gobolka Minnesota
cismaan haddii aad goobjoog ka ahayd iyo haddii aad dhegeysatayba maxaad dhaliil oo ku jira khudbadda madaxweynaha cali khudbadda intaanan gaarin haddaan wax yar ku kabo su-aashii ahayd sheekh shariif iyo maxamuud maxay ku kala duwan yihiin sheekh shariif waddanku waa yimid uguna wadahadin waxaan rabaa inaan wax yar ku kabo sheekh shariif xilligiisa horta waxay ahayd dowlad ku meel gaara maaha dowlad ku meel gaar ahayd ma ahayn dowlad taame oo Soomaaliyeed ma ahayn waa qodobka koowaad number 2 xasan sheekh soo 4 bilood jira dhaliilaha iyo khaladaadka oo dastuurka ka galay sheekh shariif xilligaas uu imaanayay Minnesota kama galin waxaan oran karnaa xilliyadii ugu dambeysay dowladdu si baabaysay ba yani sheekh shariif uu aad runtii dhaliilihiisa daldalooladiisa soo baxeen laakiin intii hore oo dhan waxaad moodaa inuu xogaa gabanayay oo mashquul ku ahaa gudaha inuu mashquul ku ahaa marka taas hadaan يعني كوكبه انت سان كغا بخيا لكن واحد مودا حسن شيخ افر بلد اسغو جيره ان فرغلينتا او دستورka ku hayo sida ugu tumanay dastuurka sida uu maamulada rabo inuu maartay uu yani wax walba wuxuu rabaa from baarlamaanka shaqadu lahaa ilaa tii dawladda ilaa TB toning inuu qabto rabaa marka isagu ma aaminsan isagu ma laha ana waxa rangaranay ama wadayay hadii waa ficilkiisa sida aad ku aragtaan ficilkiisa baa keenaysa way khudbadiisa marka dhigaysatay waxa sida dadku ay sheegayaan khudbadiisa markaan soo jeestay madaxweynuhu hadal wanaagsan buu ku hadlay dadka wixii u ballan qaaday iyo wixii uu qabtay iyo wuxuu qaban doonaba maxaad farta ku fiiqi kartaa oo dhaliila khudbadiisa baan markaan qodobaynaya way number 1 waxa weeye wuxuu ka hadlay madaxweynuhu inuu Mareykanka yimid in wax qabad ay 4 bilood qabteen isaga iyo maamulkiisa intay jireen inay dhalisay in lagu aqoonsado oo dawladda Mareykanka aqoonsadaan taas oo runtii meel ka dhac iyo sharaf dhac madaxweynaha ku ah in dawladdii hore oo ka soo shaqeysay nidaamkan dawladda lagu aqoonsaday oo hawlo isdaba yaalay ahaa midalan madaxweynihii hore Sheekh Shariif iyo Prime Ministerkiisa Cabdiwali waxyaabihii laga codsaday si loo aqoonsado waxay ahaayeen horta aqoonsigan wuxuu soo bilowday dawladdii Abdullahi Yusuf marka waxa credit-ki dawladdii hore ayuu qaatay madaxweynaha dawladdii Abdullahi Yusuf bay soo bilaabatay qoladii Shariifka kala wareegtay credit hore u socday oo la yiri marka aad dhamaystirtaan road map-ka oo aad ka baxdaan kumeel gaarka oo aad u gudubtaan dawlad rasmi ah ayaan aqoonsaneyn horta taas uu gafay madaxweynaha number 1 meeshu inkiri lahaa waata number 2 madaxweynuhu wuxuu ka hadlay markii uu wadanka joogay inuu 5 qodob oo soo qaatay oo qodob kamid ah ahaa in beesha caalamka gaar ahaan dalalka dariska oo xiriir wanaagsan la yeesho wuxuu ka hadlay Djibouti inuu tagay u mahad celiyay wanaagii Djibouti u qabatay wuxuu ka hadlay Ethiopia oo yiri waa dal maartay balaaran waxaan u baahanahay inaga u baahan maanta ganacsi ahaan iyo siyaasad ahaan waa inaan iska ilownaa 600 sano cadaawadi ahayd markii uu soo gaaray dawladda Kenya waa dhinac maray arintaas oo wuxuu yiri xogaa mugdi baa jira xogaa wuxuu galiyay shaki buu galiyay xiriirka dawladda Kenya iyo Soomaaliya marka waxaan runtii isla weydiin mudan Kenya oo la socono dhamaanteen inaan soo marnay haddana 500 oo kun oo qaxooti haysta ganacsatada ugu waaweyn oo Soomaalidana ay ka shaqeystaan sababta keentay in xiriirka Kenya aan shaki galino Djibouti oo waxba yaraatay aan ka helnay aysan jirin oo waliba Soomaaliya fargelin siyaasadeed ku haysana aan amaano oo inaanu maartay waa walaalkeen arintaas waxaan u maleynayaa madaxweynaha inay ka qayb ka tahay waxyaabaha dad badan ay ku dhaliilsan yihiin waaya halka ay jooji daawadayaal waxaad si toos ah nagula socotaan Somali Media oo barnaamijkan galabta aanu ku marti qaadnay siyaasiyiin iyo aqoon-yahano Soomaaliyeed oo iyagu markaa si falanqeynaya booqashadii amaba socdaalkii uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku yimid dhawaanta magaalada Minnesota aan markana hadalka siiyo Cabdiaar Cabdi iyo bal waxa uu ka aaminsan yahay sida khudbadii iyo booqashadu ay u dhacday Cabdiaar على أد بعض ما تنتهي صاحبك عبد القني iyo Cismaan buu soo dhaweynaya fikradooda waatay mar hadii de la wada hadlayo wax la soo sheegi karayaba waxaan malaa Soomaalinimadii been hadda soo dhawdahay tii Cabdi Qani baan ku noqonayaa ay ahayd madaxweynuhu dastuurku jabiyay iyo aqoonsigii iyo arrimihii madaxweynuhu afar bilood buu dalka warta maamulaya waxa soo doortay waxay ahaayeen waa dad leeyahay baarlamaanka xilli madaxweynaha lala xisaabtamo xitaa oo sharciga dastuurka Soomaaliyeed uu dhigayo maalinta in madaxweynaha lagu xisaabtamaa oo la qabtaa khaldaad ku galay dibaba gaarinba mana jiraba una malayn ma anigu madaxweynuhu